بسم الله الرحمن الرحيم. runtii arrintan Ethiopia guud ahaanba degnaanshaheeda iyo mandaqadu aad iyo aad isku xiran yihiin wadan muhiim ah oo wadan hadii may dhaqaalihiisu aad iyo aad u kobcayo oo xagga dhaqaalaha maanta geeska Afrika wadanka ugu hadilmay maxaa horeeya uu eegyahay isaga Kenya labaduba ay hadilmay aad u wanaagsan yihiin wadan hadilmay maxaa dhibaatada ka taagan Soomaaliya hadilmay door ka ciyaaraya wadan hadilmay Somaliland hadilmay maxaa si aad iyo aad u ballaaran ay isugu xidhan yihiin kolka dhibaatada hadilmay halka ka dhacda waa mid aan saameynayno Ethiopia hadilmay maxaa mandaqada geeska Afrika oo dhan saameynaysa sidaas aawadeed sida ogsoontihiin hadilmay maxaa African Union ku hadilmay waxa weeye waa xaruntii African Union ka taasina hadilmay Afrika oo dhan baa aad u aaneynaysa wixii hadilmay halka ka dhaca dadka iyo dawladaha geeska Afrika si gaar ah way aaneynayaan xagga hadilmay siyaasadda dawliga ah ee hadilmay caalamkana dawladaha waaweyn amba reer Yurub ha noqdeen ama Mareykan ha noqdeen amba China amba Ruushka amba India aad iyo aad bay hadilmay maxaa Ethiopia maanta marxaladda ay socoto hadilmay ula socdaan sidaas aawadeed geer hadilmay gaar ahaan hadilmay dhinaca siyaasadda hadilmay marxaliga ama hoose siyaasadda mandaqada iyo siyaasadda dawliga ba arrintaasi waa arrin aad u saameynaysa waxaana ila tahay hadilmay caalamku hadilmay inuu ku wada hawlan yahay sidii arrintaas hadilmay loo dejin lahaa in hadilmay la helo anigu aanan ku kalsoonahay in arrintaas hadilmay maxaa aanay faraha ka bixi doonin oo si wanaagsan looga shaqeyn doono Ismaaciil waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka wadani dhawaan waxa laga yaabaa in wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliya ay dib u bilaabmaan wala hadda arrintaasi sidoo warka habeen dhaweytana hadilmay maxaa aerial dood dheer oo ku jiray baa jirtay oo arrinta ku lug leh arrintaas qudheedu waa arrin aad iyo aad u muhiim ah aan ahamiyad u lahayn oo hadilmay maxaa Somaliland iyo Soomaaliya ee geeska Afrika oo dhan u wada leh saynu ogsoonahay arrinta Somaliland iyo Soomaaliya ay ka hadlayaan ka wada hadli doonaan waxay ku lug leedahay arrin hadilmay qarnigiina soo dhaafay kontameeyaheedii lixdameeyaheedii hadilmay maxaa bilaabmay oo Somaliland iyo Soomaaliya oo hadilmay isu tagay laakiinse hadilmay qoonduhu ahaa in dhulka Soomaalida oo dhan la isu geeyo arrintaasi hadilmay waa arrin hadilmay maxaa meel mari weyda oo fashilantay dantuna hadilmay Somaliland iyo Soomaaliya waxay ugu jirtaa sidii hadilmay arrintaas xal loogu heli lahaa inay ka wada shaqeeyaan dawladaha hadilmay geeska Afrika amba Ethiopia ha noqoto amba Kenya ha noqoto amba Djibouti ha noqotana hadilmay maxaa arrintaasi waa arrin taabanaysa kolka waxa ila tahay arrin hadilmay waqtigeedii la gaaray in si degan oo hufan oo qoto dheer hadilmay maxaa loo eego laga wada qabto xal hadilmay maxaa waarana hadilmay loo helo dadku waxay sideen Ismaaciil Djibouti ama madaxweyne Ismaaciil Margeele soo dhaxu noqon kara Somaliland iyo Soomaaliya wallahi arrintu horta kolka horeba wada hadalkooda waa mid khuseeya Somaliland iyo Soomaaliya Djibouti hadii lagu shiro iyo hadii mid kaleba lagu shiraba wada hadalka iyo arrintan hadilmay afgaradka cid laga doonayo horta waa Somaliland iyo Soomaaliya kolkaas Djibouti si gaar ah ayay uga duwan tahay geeska Afrika dawladaha geeska Afrika kale waayo laano waa wadan badidiisa dadka ku nool ay Soomaali yihiin waa wadan qoondihii Somaliland iyo Soomaaliya isu geeyay dhinac ka ahaa taariikhdiisu in isaguna ka mid noqdo arrintaasi hadilmay kolkay arrintii Somaliland iyo Soomaaliya ay hadilmay hagaag weyda ee khalkhal badan lagu arkay ee Djibouti goosta inay iska aanay arrintaas deegaanka ka mid noqon kolkaas kolkay noqoto dawladaha geeska Afrika Djibouti waxa weeyaan dawladda ugu faradhoobana arrintan fahmi karta Soomaaliyana fahmi karta oo door ka ciyaartay arta shirkii ka dhacay ee maanta dawladda xamar ka dhisanay ay hadilmay maxaa ka bilaabantay
jabuuti baa u sabab ahayd jabuuti baa ka shaqaysay jabuuti hadilmeye iyadoo arrintaa hadilmeye luku lahayd oo aada u fahamsan maanta hadilmeye wadciga soomaaliya siduu yahay misna haddana hadilmeye somalilan iyo soomaaliya dhibaatooyinka hadilmeye dhacay suuragal ay u noqon weyday in hadilmeye muxuu ahaa dawladdii ay wada galeen 60kii inay hore usii socoto oo ay burburto dawladda aada iyo aada u fahamsan ee geeska afrika ku taallaa waa jabuuti weeyaan madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle waa dadka hadilmeye muxuu ahaa siyaasadda ku barbaaray ee hadilmeye la socday hadilmeye madax banaanida ay jabuuti heshay iyo doorka hadilmeye muxuu ahaa arrinta in soomaalidan la isu mandaqada ambaba hadilmeye kolka la eego siday u dhigan tahay amba u dhisan tahay iyo hadilmeye muxuu ahaa muuqaalka siyaasadeed ee geeska afrika uu leeyahay ee ku saabsan hadilmeye jiritaanka wadanada kala duwan iyo siday u hadilmeye muxuu ahaa u abuurmeen de waxay la tahay hadilmeye muxuu ahaa dawlado kaloo fara badan oo iyaguna aada u aaneynaya ayaa jira maaha kuwa geeska afrika oo keli ah waxa weeyaan dhinaca hadilmeye dawladaha carbeed iyo siday hadilmeye geeska afrika ay isugu xidhan yihiin jasiiradda carabtu waa si arrin muhiima weeyaan caalamku hadilmeye si weyn buu isaguna arrintaa u eegayaa oo haddii mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay amba jabuuti iyo ciddii kaleba arrintaa dhex gasha waayo laano geeska africa hadilmeye wuxuu isku xidhaa badaha hadilmeye muxuu ahaa indian oceanka iyo badda cas iyo hadilmeye muxuu ahaa yurub iyo asia iyo australia iyo waxa weeyaan meel hadilmeye siyaasadda dawliga ah hadilmeye door weyn ka ciyaari karta dana badanina ay hadilmeye muxuu ahaa ku lifaaqan yihiin sidaas aawadeed aniga waxay la tahay hadilmeye muxuu ahaa arrintu way ka weyn tahay qof shaksiya ambaba hadilmeye wuxuu fikir ka qabo ee waxa weeyaan waa mid hadilmeye siyaasaddii dawliga ahayd tii gobolka iyo tii daakhiliga ahaydba inay hadilmeye wada taabanayso aniga waxay ila tahay laakiinse dawladda jabuuti ismaaciil cumar geelle khaasatan inuu siduu u fahmayo oo laga yaabo arrintaa uu isugu dhoweyn karo waxyaalo badan oo hadilmeye muxuu ahaa dadka kale aanay fahmayn isagu fahmi karo ay jiraan u door aniga waxay ila tahay culus inuu ka ciyaari karo laakiinse aan ku celiye kol labaad aan ku celiye kolka ugu horeysa arrintu waxay saamaysaa oo ay tahay inay hadilmeye iska fahmaan waa soomaaliya iyo somaliland khaasatanna somaliland ayay tahay qadiyadeeda siday u iibin lahayd ambaba ha noqoto dawladaha geeska africa amba ha noqoto dawladaha hadilmeye jaarka kale carabta amba caalamkaba ha noqotee cidda la doonayaa inay door culus oo hadilmeye muxuu ahaa caqliyaysan oo cilmiyaysan oo danteeda hadilmeye muxuu ahaa si wanaagsan u iibin karta waa somaliland baa hadilmeye mas-uuliyadaas ay saaran tahay waxaa kamid tahay saraakiisha xisbiga mucaaradka oo dhan dhowaan wasiirka biyaha somaliland waxa uu sheegay inaanu jirin wax biyo ballaarin oo loo socdo caasimada hargeysa arrintaas soo aragta ama maxaad ka xistaan xogtaaysa hade waa arrin laga xumaado arrin la sugayo intaas oo dhan hadilmeye siday hargeyso u ooman tahay la ogsoonaa amal weyna u jiray hadilmeye muxuu ahaa hadilmeye rijo weyne ay jirtay in biyaha xunba weyne ay hadilmeye noqdaan biyo waraabiya hadilmeye hargeysa kol keliya dadka in dawladdii ay ku tiraahdo arrintaa waxba kama jiraan waxa weeya horta waa arrin adag oo culus oo maqalkeeda iyo hadilmeye si kastaba ha loo dhigay hadilmeye arrintaa jiritaankeeda inay arrintu sidaas tahay dee aada iyo aada u culus weeyaan iyadoy sidaas tahay aniga waxay ila tahay de hadilmeye siyaasad baa fashilantay la doonaya hargeysa lagu waraabiyo dawladdii kulmiye ayaa mas-uul ka ahayd arrintan lacag fara badan ayaa caalamka ugu deeqay arrintan kolka arrintan garanay inay fashilantaye dadkii fashiliyey iyo siyaasaddii fashilisay maxaa laga qabanayaa weeye arrintani waa arrin aada iyo aad hadilmeye muxuu ahaa dawladda kulmiye ee maanta jirta ay tahay inay dadweynaha ka qanciso dadka ka mas-uul ahaa hadilmeye fashilkaas iyo lacagtaa faraha badanee
loogu deeqay Soomaaliland maanta la laayahay cidda laga doonayaa inay hadii muxuu ahaa daba gasho oo dadweynaha waxa jira runta uga sheegto dadka dambiga geystayna hadii muxuu ahaa ciqaabta ay mutaan hadii marisa waa dawladda kulmiye maanta jirta waxaa jirtay shirkad Somaliland ay dhawaan xukuumaddu sheegtay laga aasaasay waddanka Sultanka Imaaraadka Carabta taas loogu magacdaray Somaliland Investment Company diblomaasi baa tahay arrimahaas oo kale aad ugu xidhan ka waran shirkadaasi saameynta ay ku leedahay jiritaanka Somaliland iyo weliba la macaamilka dunida inteeda horta sideedaba arrimahaas oo kale in si wanaagsan looga baaraan dagaa ayaa de wanaagsan oo lagu boodin hadii muxuu ahaa aragti gaar ah mana jeclaan weeyaan hadii muxuu ahaa waqtigan aynu joogno iyadoo arrinta si wanaagsan loo eego mooyee aan hadii muxuu ahaa ka bixiyo hadii taariikh culus iyadoo sidaas tahay oo aan hadii si taxadiran hadii hadalkayga arrinta ku saabsan aan jecelahay inaan hadii u dhigo isna haddana waxaad moodaa waxyaalo fara badan oo shirkadda ku shuqul leh in madow fara badan uu ku jiro oo dawladuna ay tahay inay dadka soo hordhigto oo ay u sharaxdo manfaacada ay u yeelan kartaana aan si wanaagsan aanay hadii u cadayn kolka arrintaasi waa arrin u baahan in si wanaagsan ay dawladdu hadii u eegto haddaanay dani ugu jirin dadka wadankana ay si degdega uga noqoto haddii ay leedahay dan baa ku jirtana ay dadka soo hordhigto